haddii ay noqoto inaad isticmaashid geedka loo yaqaano moringa waa geed mucjiso leh waxyaabaha uu taro waxyaabaha uu ka kooban yahay faa'iidooyinka uu leeyahay hore ayaan ugu soo hadlay laakiin kilibkan waxaan ku dul istaagi doonaa sidee ayaa u qaadan kartaa intee ayuu socon karaa noocee ayaa ugu fiican soo dhawaada saaxiibayaal marka koowaad waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aanan mawduuciga guda galin like-ta followga subscribe-ka youtube channelkayga iyo facebook page-kayga inaan laga baqiilin lana hilmaamin moringa dabcan waa geed calaameed waa geed dhireed inta badanna waa la soo guraa waa la qalajiyaa qofkana waa uu shiitaa asagoo budo ah dhanka ugu fiican uu qofka uu isticmaali karo waa marka uu yahay budo dabcan siyaabooyin kala duwan ayuu u qaadan karaa haddii kalena dabcan haddaa heli weydo asagoo budo ah diyaarsan waxaa qaadan kartaa asagoo kaniini haddii la haayo ama la heli karo qeybaha daawooyinka oo dhirta meelaha lagu gado ama supermarketyada marka ay noqoto inaad isticmaashid marka koowaad waxaa lagaaga baahan yahay maalinkii inaad qaadatid 2 waqti subaxii marka aad quraacatid kadib inaad isticmaashid sidoo kale habeenkii marka casheysid inta badan waxaa la isticmaalaa 2 waqti marka koowaad qaab ahaan waxaa u isticmaali kartaa asagoo budo ah koobka shaaha inaad soo qaadatid oo biyo ah oo qandac ah inaad ku dartid hal qaado oo qaadada shaaha ah oo aad aan u buuxin inaad ku dhex dartid oo aad ku walaaqdid dabcan si toos ayaa u cabi kartaa marka aad quraacatid kadib ama marka aad casheysid qaadada shaaha oo aadka aan u buuxin waxay dabcan u dhigantaa 5 gram oo moringa inaad jirkaaga uu gale subaxii sidoo kale habeenkiina 5 gram isku darna inay noqon karto 10 gram maalinkii in geedka powderka aad ka isticmaali kartid moringo qaababka aad u isticmaali kartid mar biyo kuleel ayaa ku darsan kartaa sidoo kale marna dabcan shaah ayaa ka samaysan kartaa adigoo aa caleentiisa karkarinaysid toosna aad ugu daraysid wax yar oo dabcan liinanaan aadna toos u cabaysid sidoo kale waxa kaloo aad u isticmaali kartaa asagoo budo ah in aad ku dhex walaaqdid green vegetables qudaarta qeybaheeda kala duwan markaasoo si toos aad u cunaysid hal qaado oo qaadada shaaha ah ayaa ku dhex walaaqaysaa green vegetables ama qudaar ama miro waxaad isticmaalaysid maalinkii 2 waqti inaad ka badsatid maalinkii 2 waqti waxa ay noqon kartaa marka uu qofka uu yahay body builder in qofka energy badan u baahan yahay taasoo maalinkii uu gaarsiin karo halka gelin 10 gram subaxina inuu isticmaali karo 10 gram oo powder ah inuu ku darsan karo biyaha shaaha subaga ama caanaha sidoo kale inuu ku darsan karo qudaarta uu isticmaalayo sidoo kale inuu dabcan uu cabi karo kaniini ahaan maalinkii 2 waqti marka uu yahay 10 gram adoo si toos u qaadanaya raashinka kadib waxaana isticmaali doontaa ugu yaraan 1 sano isticmaalka geedkan qudaarta waa ku darsan kartaa sidoo kale shaah waa ka dhigan kartaa sidoo kale liinta malabka caanaha ama subaga si toos ayaa ugu darsan kartaa marka uu yahay powder haddii ay noqoto in kaniini aad u heshid waxaa ka qaadan kartaa 2 waqti maalinkii iyadoo aad ogaanaysid miligramku uu yahay haddii 500 miligram uu yahay maalinkii 2 waqti waa isticmaali kartaa haddii 1000 miligram wax ka badan uu yahay maalinkii 1 waqti waa isticmaali kartaa adigoo aad u qaadanaysid raashinka kadib saaxiibayaal halkan ayaan kusoo gabagabaynaa isticmaalka moringo aad iyo aad aan kaga mahad celinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu